looga hadlayo sababaha keena musiibooyinka iyo markay dhacaan sida loola tacaalo. Muxaadaradaas ayaa waxaa gaashaanka u daruuray Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abubakar Sheekh Somow oo loo yaqaan afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliya, kaas oo Sheekh Umar ku eedeeyay inuu faafiyo xagjirnimada. Arrintaas oo gaashaanka si kul lagu daruuray Sheekh Umar lafahantiisa. Haddaba aan ku hormarno Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Somow oo aan marka hore weydiiyay waxa uu ku diidan yahay muxaadarada Sheekh Umar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما سنتهي وحام محاضرة سيد أركتاد بان كديدنا هاي مركا أوجه الرئيس قف كديجايو وشيخ محمد عبد أمر لينك اللي يرادو فكر كان خوارج ضلك صوماليا دكوبا بيان أيو وحبضن تاجر سنة إلى الآن أنا ما أقول ملوك تنازلي جار أهان علماء السنة جماعة الصوفية ذو يقان وحقوق يقان قالوا مركا وحالة يابله الصيغة قال إنه يقان السنة أهل الجماعة قالوا ويهين أهل طريقة قالوا ويهين تبدأ أهل طريقة خوارجتف أي كل ليس افتديس يفكر كيسة إن ما أنت أقولتي أو يا وأخذ بها عن تروى. لكن شيخ صومو شيخ محمد عبد أمر كان يدقني هاي مسجد وين بوداعك هاي دولة كانينا واحد شيء سيدا دي أي كوكت هاي يدا بقبل لهيد مركا waxaan xageed ka keentay adiga mawaaqifta oo umal waa cadahay meelo badan oo ku suufiyadu waa gaalo marka intaasi hadda laga doodi maayo fikirkiisa maxuu yahay weydii kartiin suufiyada gaalo u yaqaana dad badan oo suufiyana waxa laayay ragan oo khawaarijta ah waxayna u laayeen inay gaalo inay ka aaminsan yihiin marka dad badan ay qafri ku jira kuwana oo hanti beelan kuna waa lixaadkooda ku waayeen agoonti aan maanta caqiidadooda lagu dilayaan kula digasho waaye taas ma asiga iyo Kenya wixii ka dhaxeeyo gooni waana shaqo ku mali laakiin ananka gaalo noo yaqaana dad muslimaan nahay alu dariiqan nahay alu sunnah nahay gaalo noo yaqaana waa iftooda dad badan nooga maqan iftadiisa laakiin meel uu ku yiri gaalatiin ma ogin annaga midda kale Sheekh Somo waxa tahay afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed wada shaqeyn dhowna waxa idin kala dhaxaysa hogaamiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir sidaan ognahayna Sheekh Bashiir iyo Sheekh Umar waa saaxiibo isku mabda isu dhow marka midna waa culaadinaysa midna waa soo dhawaysanaysa sababta maxay tahay sida aad u dhigtay ma ahayn مجمع علماء الصوماليات هيئات علماء يقولها جود علماء الصوماليات وحيابها اسكو وافقسينهين وحاكميدا إن ذلك كان فكرك أو تكفيرك على جلد قالوا إن ذلك كان مارته دولة دمدي سلوا حجيو إن تبويشين دي سلوا حجيو إن سياسيين دي سيادقن كيس علماء دي سلوا اسكو وضو إن الله جارسيا مال ونايسن وحيابها جود أو حاجة ممكن اتفاقيات أنكو ولا جارني لكن اتفاقيات إذا أمر كم جرا نلا صحيحا نقل مدمعين ونقول عنيا وأنا نقول هديها مركا مكة قاعدنا إنه mana ogolin dadkii fikirkaas lagu laayay inuu soo hor istaaga raali ku bani asigoon cadaynin inuu boqofkaas ka laabtay ka tooba keenay afisaan weydiisan marka Sheekh Umar waxa leedahay Soomaali ma ahan oo culimadii Soomaalida ka mid ahan miya anigu culimo maqan laakiin مالي وايهاي مديدني لكن أقوانتي سيفكركيس يكون مفرسني wararka qaar waxay sheegayaan in shakhsiyan adiga aad rabtay dhaqaalihii uu waday bardweyne uu waday in adiga lagu soo marsiyo taas waa dicaayad raqiisa amba aad u sameeynaysan mana isnaqaan waligayna hormaarin dhaqaalahaasna anigu gudiga guuda qayb ka ahay guud inuu soo maran xaq uma ahaynba marka taas waa dicaayad raqiis ah oo ku asiga aaminsan u sabab gareynayaan waxaan ka leenahay caqiido dhaqaale ka hadlimino Sheekh Maxamed Cabdi Umar Soomaaliya markuu yimid madaxweynihii Soomaaliya soo dhaweeyay madaxdii baa soo dhaweysay ilaa madaxtooyada la geeyay waxa adiga ku muuqdo ee aan iyaga madaxda dalka u muuqan maxay tahay madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed kulli goorkii ahlu dariiqay kii wahabiyo madaxweynuhu yahay qof kasta u timaadan inuu soo dhaweeyo xaqiisa waaye taas uu kala waay gaaladu qaabili kara yahuud uu qaabili kara cid kasta oo dalka u timaada oo qaabili kara marka mufti u yimid oo qaabila oo kuleeyahay ma garanayo waxaan ka hadlaa waxa waaye fikirkii takfiiriga oo ahlu dariiqa lagu gaalaysiinayay nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu xaqiraayay in la soo gudbiyo oo shacabka bulshada loo gudbiyo taas baa u arkaa khatar diini ah muxaadarada khatarta diiniga ku jirta maxay tahay ilaa haatan numada sheegin waaba ku sheegaba qof aaminsan dadkaanu inuu gaala yahay inuu soo hor istaago ee diin u sheegamayn haday dhacdo marka in baaqaaga dadka ay dhageysan waayaan oo sheekha loo tago oo muxaadaradii uu qabto maxaad sameynaysaa marka kadib ilaahay wuxuu leeyahay wama cala rasuul ila albalaaq khususha ayaa lagu yiri culimaduna warasatul anbiya waaye tabiinul xaqa nagala rabaanaka ina xaqa cadayne malin dadka ijbaaraya anigu ina xaq dadka u sheegno aynan ku kadsoominaan aan ugu leeyahay qoryama sidano dadka ha gelina oo ha u tagina ma dhahayno waxa leenahay ha tagina meeshaas waxa ka iman kara in ara ilaahay ku soo degto saadaraad ha tagina leen
وتكاسي waxa uu ahaa Cabdul Qaadir Sheekh Maxamed oo loo yaqaan Sheekh Soomo khadka telefoonka ayuu ugu waramay hadaba dhan kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo isna gaashaanka u daruuray eedahaas waxaan markii hore weydiiyay waxay tahay muxaadaradan doodda ay ka dhalatay بسم الله عقير ما أوجي واحد وضع أو أرنتها كتير ما أوجي هذا هذا الإعلامي وقطع الجشرة هم بان أوجي لك واحد وضع أنا أكسره ما بتشتبه الشيخ عبد القادر الشيخ محمد شيخ سومو وكم إذا علماء مجالات مقدسو أيا جورو ينور رمي وحوش جاي إن محاضرة أي حبابين تهاي سيد درادين ضدك أنا تجين مركا دودس معك جوابيسها ما أسكري وحلي هاي شيخة وحو آدو تغييري أفكار حق جيركا مركا يسوي أفكارتاس تغييري إنه هذانا محاضرة مقدسو قبطو وخلد وين دولتك waxaan u maleynayaa warbuusan hayninba manin hurta ka soo kacayba adduunka lama socdo miya kaarta uu ka hadlahayo haday tahay midan qoladan qulaadii jirka ay qabaan dadka kaliya la dagaalamay anagaan ahayn ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii halis badan u galay naftooda khatar loo geliyay culimadiinadii baa lagu laayay sida loo soo yahay marka wuxuu ka hadlay ma garanin walaadku wuxuu la soconin waxa jira iyo mawaaqifta culimada iyo hadduu aqoon diineed leeyahay adduunka hadda jirana uu la socday aniga sida inuu soo hadlay laakiin waxaan u fahmay oo wadaada wax la socdo waxyaaba uu kugu eedeynay waxa kamid ah in afkaar iyo fatwa aad soo saartay dadkiisii lagu laayay gaar ahaan suufiyada والله ولا اللي ما أوجي يعني الصوفية فتوتي الأولى هي خطتي ما أوجي وحوبها هي إنه كانوا ماشي أنا أقول الصوفية هلا الله يو أما دريقوين كهلا الله يو أما قالوا سي جملة يضوضوا قالوا دين تكبر حريوري ماشي أقول رسالة لغة هي warkaasi uu ka sugan yahay meesha iyo xilliga aan iri inuu sheego loo baahan aniga waa la yaqaanaa afkaarteeda waa la yaqaanaa qanaacadkayga waa la yaqaanaa dadka waxaan u sheegana waa la yaqaanaa oo wada duuban yahay ummaduna way ka warhaysaa marka wadaadka isagaa looga baahan yahay inuu suga waxa uu sheegayo muxaadaradan muqdisho aad ku qabanaysid maalinta Britaa yaad u sheegtay yaad kala hadashay dawladdu way ogtahay walaal qabanqaabadeedana qayb tahay anuguna nin dalka matuba amay dalku waa dalkeygii meel alla meeshii ila qumanaatan waxba ka jeedin masaajidan ka jeedin telefishinkan ka jeedin goobaha khaaska baan ka jeedin wixii aan maslaxa u arko oo aagashadaydu itiraahdo ummadda waa la wadaagaya walaal siyaasana dhaqaliyahay dawladuna dawayba ogtahay oo meesha ila ka talisa dalkan ayada joogta barnaamijkana waxa weeye ilaa hadda wax dareen iyo diido iga soo gaadhay ma jirto marka wixii ummadda aan u faa'iideynaa waana dhaqan baynu ku ahayd walaal Sheekh Maxamed Cabdi Umal ujeedka meesha aad u tagtay markii hore wuxuu ahaa inaad gargaar gaarsiiso marka hawshaadii marka gudatay soo inaad soo laabato saldhiga ku soo laabato ma ahayn intii aad muxaadara halka ka jeedin lahayd maadaama ay halka culimo joogaan adeer dalku waa dalkaygii waaye haddaan tagayna kaalmada aan gaarsiiyey risaaladii kale aan xambaarsanaa baan gudanaya lodaygan ka soo noqda muxaadaraad ku jeediyey muqdishoan joogaa telefishinka qaranka kulamo gooniya kulameel guud ummadaydii baan la joogaa wax u sheegayaa waajibkii saarnaa baan gudanayaa mana aha markii koowaad ma aha dalka soomaalidu degto dhan baan maraa dibadahaan u tagaa ummaddu waa dadkaygii waa ummadaydii dalkuna waa dalkaygii marka nin iga xigsan kara jiroo dhihi karaya maxaa muqdisho keena maxaase dawladdii iyo madaxdeedii baan qaybaheeda kala gedisan tala iyo nasiixa iyo wixii waajib ay isweydaarsanayna ummadda inteedii kalaanu xidhiidhaynaa marka dawladaad si gooniya isagu u jiran hadduu jiraay hawl isaga u taalla waayo laakiin wax yaalla maaha waddanka ma garan waxyaabaha kale ee Sheekh Soomo uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in suufiyada aad gaalo ku tilmaantay marka arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa asuba xaggee baan ku yidhi xaggee suufiyada iyo dariiqooyinku waa gaalo aan muslim ahayn isagaa looga baahaya ninkii wax sheegta albadiinatu cala almuddaci buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yani cidda wax sheegtay baa caddaynta laga rabaa wadaadka ku warceliya waxaad tidhaahdaan waxaa lagaa rabaa caddaynta meeshuu ku yidhi xilliguu yidhi ayaa lagaa rabaa ruux wax waa iska sheegan karaa waa iska hadli karaa social media wax waa iska soo dhigi karaa laakiin waxaa looga baahaya wixii inuu caddeeyo ama cod ama qoraal ama inuu keenaa loo baahaya mana soo heli karayo meel anigu ku yidhi dariiqooyinku dhammaan waa wada gaalo dadka dariiqooyinkaan raacsan diinta waa ka baxeen sax waa jiraan khaladaadaan ku haysano loo baahaya muxuu ahay in ummadda laga saxo ayagaa dad kaleeto khaladaad waa khaldantii sayshkaasi waa masaa'il u baahan in laga niqaasho laga wada hadlo wax la isfahansiiyo laakiin dariiqooyinku waa gaalo meeshaan ku yidhi isagaa laga